wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo uu weelinayo barasaabka gobolka Badhan ayaa gaadhay deegaanka Ceelbuhu ay isugu soo guureen dadkii abaartu xoolaha ka caydhaysay ee hore uga hayaamay dhinaca deegaanada Puntland haatana dib deegaanadaasi ugu soo laabtay waxaana wafdida wasiirku ku dhawaad 3,000 oo qoys ay gaarsiiyeen deeq raashin iyo biyo isugu jira oo dadka abaartu barakicisay loogu talagalay waxaana ugu horreynba halkaasi hadalka isaga daba maray qaar ka mid ah dadkii soo barakacay iyo mas'uuliyiinta deegaanadaasi halku waa magaalada Ceelbuhu aan ugu soo dhaweynaa dhammaan waxaan leenahay soo dhawaada iyo dhammaan xubnaha gudda abaaraha ee heer qaran iyo heer gobolba oo maraya dhammaantii waxaan leenahay soo dhawaada gacana furan baan ugu soo dhaweynaa waa idin soo dhaweynaa barasaab kale wasiir kale taliyayaasha ciidamada leh saraakiisha kale leh gacmo furan iyo qalbi furan baan idinku soo dhaweynaynaa wasiirka iyo barasaabka iyo waftiga kale ee la socotay soo gaaridda ayna soo gaareen iyagoo weliba saan rajaynayo wada gargaar ay u wadaan soo guurtada iyo dadka soo degay magaalada ee soo naqraacay bari ka soo guuray wasiir ku-xigeenka xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile ayaa sheegay in ujeedada ugu weyn ee socdaalkiisu tahay gurmadka raashinka iyo biyaha la soo gaarsiinayo dadka abaaruhu halakeeyeen ee isugu soo guuray deegaanka Ceelbuhu ee gobolka Sanaag waxaan kaliya oo u mahad celinaynaa odayaasha iyo saraakiisha ciidanka iyo guddida abaaraha ee heer gobol iyo guddida abaaraha ee heer degmo inta u mahad celinaynaa soo dhaweynta mar labaad waxaanu idinka mahad celinaynaa waqtigan aad noo soo mustacaysheen la soo dhaweyseen isu dhaweynteeda halkan aad muddada badan u taagnaydeen waxaanu kaloo aad idinka mahad celinaynaa oo taariikhdu xusi doontaa sidii aad ka yeesheen dadweynihii tirada badnaa oo bari iyo galbeed iyo koonfur meel walba ka yimi oo isugu soo guuray Ceelbuhu sidii aad u soo dhaweyseen una maamusheen inta kadib annaga ujeedkaygu waxaanu ka nimi Hargeysa safarka ujeedkaygu wuxuu ahaa gargaar gaarsiinta degmada Ceelbuhu meel kale oo aanu u soconay ma jirto gargaarkii baanu sidnaa biyihiina waa ka dambeeyaan laba hay'adood ayaa soo wada magaalo kale oo ma wadno Ceelbuhu baanu u wadnaa Barkhad Maxamuud Geedi Bulsha TV magaalada Ceergabo